Munaasabadan oo uu ka soo qayb galay tafaftirihii hore ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da siyaasiga Yuusuf Garaad Cumar ayaa waxaa lagu maamuusayay maalinta madax-bannaanida saxaafadda. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ururada bulshada ee waddanka Holland ku nool, qaybaha kale ee bulshada, wariyaal iyo weliba dadweyne kale. Munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa lagu daahfurayay ururka cusub ee la yiraahdo Center for Media and Dialogue ee xarunta saxaafadda iyo wadahadalka, taasi oo qaban doonto waxyaabo badan oo ku saabsan dhanka saxaafadda iyo weliba doodo ay u qaban doonto bulshada Soomaalida. Munaasabadda intii ay socotay ayaa dadkii ka hadlay waxa ay si aad ah u bogaadiyeen ururka Center for Media and Dialogue, waxaana ay sheegeen in uu wax badan ka bedelin doono arrimaha saxaafadda iyo weliba in uu doodo u qaban doono bulshada gudaha iyo weliba dibadda ku nool. Sidoo kale saxafiyiintii iyo weliba dadkii ka hadlay munaasabadan qiimaha badneed ee markaasi lagu maamuusayay maalinta madax-bannaanida saxaafadda ayaa waxa ay si aad ah u bogaadiyeen saxaafadda Soomaalida, iyadoo sidoo kale saxaafadda loo soo jeediyay dhaliilo ku aadan qaabka ay warka u tabiyaan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta ururadii hore u jiray uu ku soo biiro urur cusub oo sida halkan aad ka aragtaan Center for Media and Dialogue. Runtii shaqadiisa ama ujeedadiisuna halkan ayay ku caddahay oo way ka duwan tahay waxyaabihii hore oo ururada hadda jiray qabtaan. Runtii waana arrin loo baahnaa sida ay muhiim u tahay. Waxaan qabnaa in aan furno ugu horeyn urur cusub sida aad ujeedaan oo halkan boorkiisa ka muuqdo oo la dhaho Center for Media and Dialogue. waxaan la jeednaa ururkan u furnay ujeedooyinkiisa iyo kulligood waxaa sharaxi doona xogayaha guud ee ururka. isaga ayaana halkan ujeedada loo aasasay ururka halkan ka sheegi doona, laakiin waxaan lahaa khudbadda inaan furo. sidoo kale waxaan maanta aan ku soo beegnay maalinta xorriyadda saxaafadda. marka waan ku faraxsanahay in isla markaasna maanta ay tahay lagu aadiyo maalinta codka dadku inay xorriyadda codka oo ka mid ah fundamental rights-ka oo xuquuqda ugu muhiimsan oo qofka uu leeyahay. midda kale waxaan is leeyahay qowlkeena iyo hadalka waxa ummaddu inta badan ay muhiimadda loo saaraa waxay tahay in qofka lagu soo barbaariyo. annaga barbaarinteennad ba is leedahay marmarka qaarkood. Gunaanadkii munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay Yuusuf Garaad Cumar oo ah khabiir dhanka saxaafadda, isagoona si weyn u falanqeeyay arrimaha saxaafadda iyo weliba qaabka wariyaasha Soomaalida ay warka u tabiyaan, isagoona si weyn u sharxay sida wararka loo tabiyo iyo weliba barnaamijyada, isagoona sidoo kale ka hadlay ilaalinta ammaanka saxafiga. tan ku saabsan xorriyadda saxaafadda. xorriyadda saxaafadda waa maalinta loo dabaaldegayo maalinta 3 bisha oo berita ah, iyo xorriyadda qowlku waa isla socon karaan. xorriyadda saxaafadda Soomaaliya dhib badanna waa ka jira, iyadana dhib badan ayaa lagu qabaa oo dhinacyo badan oo kala duwan ku qabaan. dhib badan waa ka jira oo tii hadda uu noo sheegay saaxiibkeen Cali oo ama ha noqoto dadka hubaysan ama dadka madaxda ah maamulada iyo dawladaha ama gurubyo aan la sheegin oo ganacsatada oo wad leh ama ha noqoto qabaa'ilka oo markii group qabiil ahaan ay wax u dhibsadaan qofkii markaas wariyaha ah oo warka waday dhibaato u geysan kara ama idaacadda waday dhibaato u geysan kara. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro, warbaahinta qaranka magaalada Rotterdam, waddanka Holland.